السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجنال كيني فانو للجنال كبرو كالنت هذه تيري ميل كستو جوكتبا داس كدي الذي وحل وذاقي برامج قصي ودك هولن سالا سعوتان با وحا كدعاي دقال ودك أوكراين راشنكا دقال كاس مقعي دونان هاو بحيان إذا عذار ريقل بيتكا انت بدن وحير هذان ودولان eragaas isticmaalaa vision ama invision wax lagu magacaabo laakiin qof ba aragti uu leeyahay ani aragtideeda shakhsi ahaaneed saas ma qabo duulaamada noocan oo kale iyaga u horeeyo sameeyay Ciraaq ku sameeyeen Liibiya ku sameeyeen Afghanistan lagu sameeyay marka waxay iyaga suubiyeen ninka odaga ah ay saaxiibkood sameeyay marka waxa raba aniga sameynaa adigana ha hadlin way ma fahanti caalamku waxa ka jira waa saas waaye qofkii wax fahansan waa qofka kale jariirad ka soo baxda Mareykan ama Ingiriis ka soo baxda ama wadankan jooga ka soo baxda Netherlands ama Jarmal ka soo baxda afkoodii ku hadashaa danahooda gaarka ayay ka hadlaan waxay iyaga ay qabaan ay ku sheegayaan laakiin waxa la rabaa adiga in kala baandeyso sida turubka oo kala shaandeyso aqliga fiican adeegsato idaacadaha dhaxdhaxaadkana dhageysato maaragtay inkastoo idaacadaha inta badan wadankooda markii laga hadlayo danahooda gaarka oo marba difaaco sida tan Turkiga oo kale idaacadaha dhaxdhaxaadka ka mid ah Al-Jazeera Soomaaliku waa lanta idaacad reer galbeed warkeedu waa cadiyay taas xaqiiqatan waa idaacad loo sameystay in dadkeennii dunideennii maskaxda looga bedelo waana wax badan ay ku guuleystaan yaanu ku dheeraanin duulaankaas marka waxay ku magacaabeen dhibaato badan ba ka soo gaartay dhaqaalaha sanction wax la dhahay economic sanction in dhaqaalihii laga xaniba wadanka Russia laakiin waxa muujin ismudan dhaqaalahaas uu saameyn ku leeyahay reer galbeed ku yeeshay runtii qaasatan Yurub boqolkiiba markii la saaro aniga ma wax dhahay wasiirka shirkii Brussels iskugu yimid 26 bishii la soo dhaafay 25 ahayd bishan hadda March lagu jiro 2022 wasiirka ra'iisul wasaaraha wadanka Greega erey ku dhawaaqay waxay tahay kii Bulgaria inuu qabatayntana la soo ordeyno wuxuu yiri boqolkiiba 10 bay Ruushka saameynaysa boqolkiiba 90 annagana saameynaysa adiga dhageysanayo waad ogtahay hada wadanka Holland joogta ama Germany cuntada dhaqaalaha marayso waad ogtahay saliidi kaliya inta marayso qiimo waad ogtahay burki qiimuhu joog jira qiimo labaad way double way ya hadii saliidi ka soo qaad wixii oo 5 euro la gadi jiray 10 umra wax la isla ognahay waa qarsoon ma marka benziinkiina iska dhaaf warkiisa markaas ya waxa soo dhan ninkan odaga maaragtay Russianka dhaqaalaha adduunka saameyn badan ku leeyahay runtii ninkii taabteen nin iska jiifay hurdada ka soo kiciyeen si kala hada u dhigo marka sanctionka saameyntaas u yeeshay marka waxay soo kordhiyeen marka warkiiga soo koobo warqadan waxa ku qoran wie krijgt die 800 euro energietoeslag dat verschil per gemeente waxa waa yaa helaya 800 euro energietoeslag macnaha maadaama culays yimid korontadii qaali noqonayso gas baa la isticmaalaya lacag waxa la siinaa liiri energietoeslag ma fahanti toeslag waxa la dhahaa qofka markuu shaqeeyo lacag dheeraad oo loogu daro فرسخيل انت خبر خمينتيه كلا دوان ودن كان كنا الله خمينتيه يسمعنا وحلو جيدا دولة هو سواي ودن كجرمة كجيماين ده استعمالان أما إنجليش ككونسولادو على كل حال كونسولار ما فهمتين هدي دتك دقاله هذا وهو سيو أيام مركا أنت بدن هو شاس لسين دونا كسوقات وحليهن خمينتي لغو مقعابو sida Den Haag oo kale waxa suuragal ah in bixiyaan 800 loogu talagalay sida sharciga wadanka ay hay'adda konsolada u qaabilsan ee qorsheysay laakiin in 900 dheeraad ku darto door direct qamitiga la yiraahdo waxa suuragal in 600 bixiyaan
Rotterdam waa tan ugu xuna la yiri waa suuragal inay 200 bixiso 200 800 lixi goosatay 200 inay bixiso waxaan wax ani sheegay ma ahayn waxa ka soo xigtay radar 24 waa general caano la yaqaana ah wadankan ah ama gal radar.nl hoosan kugu soo qori committeeska insha Allah halkaas aad kala soconaysaa marka arintu waa saas qoray waxa soo haray marka magaaladan gobolkan deganahay Gelderland caasimadiisa labaad Nijmegen kolay website-kooda qamitiga waxa ku jira inay bixin doonaan lacag 800 ah 800 euro in la siin doona dadka dhaqaalahooda oo income-kooda laaqayahay dad waxa jira baaritaan shaqeeya dad waxa jira طبعا lacagta dadka benefit-ka la siiyo ama outcaring-ka loo yaqaan ku dhow dadka dhaqaalahooda hooseeya la siinaa dadka outcaring-ka qaadi dadka low income isku wax la dhaan marka kuwaas adii hadda ka mid tahay lacagtaas waad heli doontaa waxba aan faraaqa ma sameynaysid sida qamintinaamiga ku qoran waxay leeyihiin waynu ognahay automatic dabeeqada bisha Abriil 15 waxay ka bilowdo beelahaas ayaa la soo shubi doonaa saasi iyaga ay leeyihiin qamitiga website-kooda saasa ku qoran wixii macluumaadka qamitiyadaas links-yada committeeska hoose la wadaagi doona insha Allah state-kan deganahay gimaandahooda ama qamintigooda ama council-kooda kan aad degan tahay marka adiga waxa gashaa qaminti Rotterdam of Den Haag of maaragtay Dordrecht halkaas ka akhri energy to islaax waxyaalaha uu tala galeen walaalaha dhamaan meel kasta joogtaanba waxaan isku ognahay warsan iyo khayr warsan waa war wanaagsan waa macnaheeda ya Soomaaliga aan idin qeexo ilaahina waxa ka rajeynaa Allahumma ballighna Ramadan ya Allahumma barik lana Sha'ban Rajab wa Sha'ban inkastoo la soo dhaafo gabadaba ay tahay oo maalin ilaa maalin oo ka dhiman yahay Ramadaanka Ramadaanna ilaahay nabad inuu nagu gaarsiin dhamaanteena intaas ay idinkaga tagi meel kasta joogtaanba sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in